maxaad kala socotaa qorshaha la dagaalanka al-shabaab deegaanada galmudug ee uu qaybta ka yahay General Saadiq John oo xamar ka soo socdaalay fadlan warbixintan intaanu u gudagelin daawade muuqaalka like saar siina share gare si aan u helno saaxiibo adiga oo kala ah oo mar waliba la socda warbixinada aan halkan ku soo gudbino generaalkan dhawaan soo gaaray galmudug gaar ahaan Dhuusamareeb ayaa hadda isaga iyo ciidamo fara badan ee uu hogaaminayo waxay gacanta ku dhigeen deegaanka Camaara oo qiyaastii 8 kiiloomitir u jirta kagana beegan jihada dhankan koonfur bari degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya kahor inta aysan ciidanku hogaaminayo generaalka gacanta ku dhigeen deegaanka Camaara waxay dagaal xoogan la galeen al-shabaabkii ku sugnaa deegaanada Qodqod iyo Qorile oo Camaara hoostaga sida aan xogta ku helnay waxaa jira qasaaro soo gaaray labada dhinac ee dagaalku u dhaxeeyo balse ilaa iyo hadda faahfaahinno toos ah lagama hayo waxaana gebi ahaanba ka barakacay deegaanada lagu dagaalamay shacabkii deganaa deegaanada Camaara Qorile iyo Qodqod ee ka tirsan gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya Saadiq John oo xamar uga soo tagay inuu al-shabaab ka xoreeyo deegaanada ayaa gacanta ku hayaan ee galmudug ayaa maanta kaalin lixaad leh ku lahaa dagaaladii al-shabaab deegaanadaasi lagula galay iyadoona ciidamada dawladda guulo la taaban karo ayaa ka soo hooyeen dagaaladaasi sida ay saraakiishu ku warameen General Saadiq ayaa sanadihii 2015 iyo 2016 waxa uu howlgallo qorshaysan ka fuliyay deegaano dhowr ah oo ka tirsan galmudug waana nin aad dhulka u kala yaqaana sidoo kalena aad wax uga yaqaana xeeladaha dagaalka oo waata la dalbay isagoo xamar jooga inuu galmudug yimaado si uu al-shabaab ula dagaalamo generaalkan oo gobolka Banaadir ka yeelay maanta nabadda iyo xasiloonida lagu naaloonayo muddadii uu taliyaha ka ahaa ayaa iminka xirfadiisa u hibeeyay maamulka galmudug isagoo horboodayo dhammaan dagaalada lagu qaaday maanta al-shabaab iyo kuwa qorshaysan intaba daawade maxaad ka dhihi lahayd janankan